waxyaabaha nijaasta ah maxaa ka mid ah waxyaabaha nijaasta ah ma jirtaa nijaaso oo daahir noqonaysa kuwaas ayuu noo sheegay wuxuu leeyahay alladii yadharu midka daahir noqonaya min annajaasaati alladii yadhuru midka daahiroobaya min annajaasati xaal uu najaasada ka mid yahay halaahatun saddex waay shay nijaas ahaa oo nijaasnimadii inta ka baxa daahir noqon kara waa saddex shay alladii shayga yadhuru daahir noqonaya min annijaasati xaal uu ka mid yahay nijaasooyinka halaahatun saddex waay alkhamru khamrada goormay daahir noqon kartaa khamradu waa nijaasideeda laakiin goormay daahir noqone idaa takhallalat markay khal noqoto markay isbedeshoy macaan noqoto oo maandooriyanimadii ay ka baxdo idaa takhallalat markay khal u noqoto binafsihaa iyada nafsadeeda iyadoon la qaadin oon qorax la dhigin iyadoon meel qabow la gelin iyadoo sideedii markay inta isbedesho khal noqoto khalku waa shay muxuu ahaa macaan ah shaygiina aan ahayn maxaa la dhahaa malabkiina aan ahayn shay macaan oo dareero ah weyaan oo khamradu marka ay isku bedelayso alkhamru khamradii ayaa daahir noqonaysa idaa takhallalat markay khal noqoto binafsihaa nafsadeeda markay khal u noqoto khamradu asal ahaan waa xaaraan waana najaas yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaydaan waa ilaah yiri waa quruna ka fogaada baa la yiri marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii anas ayaa waxaa la weydiiyey can alkhamri tutakhadu khallan muxuu ahaa khamrada oo khal laga dhiganayo markaasuu wuxuu yidhi laa maya xalaal ma ah haddii iyada laga dhiganayo oo khal loo bedelayo xalaal ma ah laakiin waxaa riwaayad kale ay ahayd xataa yakuunu allaahu waladii afsadahaa ilaa ilaahay uu ka noqdo midka fasahaadiyey oo bedelay macnaha khamradii alla hadduu bedelo oo ilaahay xaggiisa ay iska bedesho oo iskaarkii iyo qofkii inay madaxa ka dooriso ay isbedesho arrintaasi khal bay noqoto baa laleeyahay waana daahir waaya marka qodobka koobaad waa khamrada markay iyadu iskeed isku bedesho in la bedelo maya wa jildul meytati meytada ama baktiga maqaarkiisana waa najaastii uu ka baxaa oo daahirnimo uu noqdaa idaa dubiqa haddii la magdeeyo idaa dubiqa markii magad la mariyo oo wixii wasaqda ahaa laga saaro ayuu wuxuu ku noqonayaa daahir uu noqonayaa qowlka ibnu cabaas ayaa waxa uu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu arkay addoonkiisii oo maymuuna ay lahayd ri inay ka dhimato markaasaa nebigu wuxuu soo maray ridii oo bannaanka loo sii tuurayo markaabuu wuxuu yidhi fahallaa dabaqtum iihaabaha fahallaa akhadtum iihaabaha maqaarka maa ka qaadatiin oo fa dabaqtumuuhu aad markaasi magdaysiin oo fantafactum bihi aad ku intifaacdaan haddii maqaarka aad rida inta ka bixisaan aad ridii way baktisay markay baktisay kadib waxaa leeyahay maqaarka kala baxa maqaarkeedii ku intifaaca inta magdaysaan waa bannaantaa shay meyte ahaa faqaaluu inahaa meyta way baktisa bay dheheen faqaala inamaa xaraamun akluhaa waxaa xaaraamahuu yidhi in la cunaa xaaraama iyadii in la cuno xaaraama maahane maqaarka waa lagu intifaaci karaa xadiidka muslima soo saaraya marka meyte kasta ama bakti kasta maqaarkiisa hadduu intifaac leeyahay waa lagala baxayaa kadib waa la magdaynayaa dadkii horaa magada isticmaali jiray maxaa loo isticmaali jiray ama dharaa laga dhiganaya waxaa laga dhiganaya maxaa la yidhaahdaa gogol lagu seexdaa laga dhiganaya waxaa laga dhiganaya maxaa la dhahaa gogol lagu dukado waxyaabahaas oo dhan ayay tarayeen intaan waxyaabahan casriga ay soo bixin
maqaarkaas la isticmaali jiray waaya marka meeytada baqtiga ah maqaarkeeduna waa xalaal waa daahirmaya markii la magdeeyo kadib wama shaygii saara ka ahaaday xayawaanan xayawaan xaggiisa noqday wama shaygiina waa haram oo meeytadii xaggeeda ka ahaaday saara noqday xayawaanan xayawaan noqday shaygii xayawaan noqdayna isna daahir waa maxaa laga wadaa warkaasi shaygii baqtiga ahaa ayaa waxaa ka dhalanaya tirxigaasi nijaas ma ah tirxigaas hadduu ku taabto nijaas ma ah isagu waa daahir laakiin asalkiisa intuu ka yimid baqtigii ka dhashay shay kastoo baqtiga oo la fogeeyo markuu qurmo kadib waxaa ka dhalanaya tisxi ayaa ka dhalanaya tisxiga ka dhalanaya waa cufuunadeedii ayuu ka dhasho maahana meydka baqtiga kama uusan dhalan cufuunada meydku markuu isbedelo kadib ayuu isagu dhalanaya waayahay kaasina marka waa daahir wey daahir ayuu noqonayaa ee nijaas ma ah faslun annajaasaatu nijaasooyinka thalathatun saddex waay wax alla wixii najaasaho jirta saddex ayaa loo qaybinaya mar mughalladatin mid adag wa mukhaffafatin mid fudud iyo mutawassitatin mid dhexdhexaysa nijaasada marka la fiiriyo sida ay lagu daahirinayo daahirinteeda marka loo fiiriyo saddex xukun ayay leedahay nijaaso waa nijaaso adag qaab loo dhaqay leedahay oo loo daahiriyo nijaasana waa nijaaso fudud iyana qaab loo daahiriyay leedahay nijaasana waa nijaaso mutawassita oo dhexdhexaad ah saddexdaas ayay nijaasooyinku u qaybsamayaan nijaasooyinku waa thalathatun saddex mughalladatun mid adag wa mukhaffafatun mid fudud iyo mutawassitatun mid dhexdhexaysa almughalladatu midda adag najaasatul kalbi eyga nijaastiisa wey iyo wal khinziiri doofaarka nijaastiisa iyo farcu axadihimaa saddexdaas labadoodaas wixii kasii farcama najaasada mughalladada ah waa najaasatul kalbi eyga nijaastiisa wey wal khinziiri doofaarka nijaastiisa wey iyo wal farcu axadihimaa labadooda wixii kasii farcama kow najaasatul kalbi inay mughallado tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisii ayaa u daliilahoo ahaa idaa walaqal kalbu fil inaa'i faqsiluuhu 7 maraatin wa owlaahunna bituraabi haddii uu afka geliyo weelka hadduu ay afka geliyo 7 mar dhaqa midkoodna ay tahay cara ay tahay marka maadaama shaygan hal mar aysan dhaqitaan ku filnayn oo 7 mar oo carana lagu daraayo waxaa la leeyahay waa nijaasa mughallada nijaasa adag doofaarkana ilaahay baa ku tilmaamay aw laxmal khinziiri fa innahu rijsun ka fogaada maxaa la dhahaa eyga doofaarka hilibkiisii haddii hilibkiisii la yiri waa qurun way isagiina waa qurun labadooda wixii ka farcama oo iyagoo iska dhalaan eyba doofaar ka dhalay ama doofaar baa ay ka dhalay ama labaan kaloo muxtarama ka dhalay farci axadihimaadaas axadkaasi ama waa labadooda ama waa xayawaan kale ka dhaleen asalkiisa maadaama uu nijaastiisu adkeed isna asalkiisa yaa la raacinaya wal mukhaffafatu nijaasta la fududeeyena qawlu sabiyi cunuga kaadidiisa wey alladii cunugaasoo lam yatcam aan quudanin غayra labani waxaan caana ka ahayn walam yabluq الحawlayni 2 sanana aan gaarin kaadida cunuga yarka ah wiilka yarka ah on caana waxaan ahayn quudanin 2 sanana aan gaarin ayaa nijaasta mukhaffafada ah leeyahay najaasta mukhaffafada ah waxay tahay waa najaasta
wiilka yarka ah oo waxaan caano ahayn quudanin 2 sano aan gaarin haddii raashin la siiyey cunto haddii lagu quudiyey xaalkiisu isbedelaya 1 sano uu jiraa laakiin qudaar iyo cunto la siiyey kaadidiis mukhafafnimadii way ka baxeen caanaha naaska hooyada buu nuugaa ama wuxuu caanihii masaasada bis u cabaa cunug wiilka noocaasa nijaastiisu waa mukhafafa ayaa lagu magacaabaa nijaasta fudud waxaana taas muxuu ahaa tusinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa loo keenay wiil yar oo aan caano cunin wax raashina cunin nabigu markaas wuxuu saaray dhabtiisa wuxuu ku kaadiyey maradiisii buu ku kaadiyey wuxuu u yeertay biyo uu ku firdhiyey nabigu mana dhaqin biyo ayuu ku firdhiyey isagoon dhaqin marka xadiidkaas ayaa u daliila cunuga yarka ah kaadidiisa inay taas tahay gabadhii maya gabadha iyada kuma jirto sababta macnaha waxaa leeyahay 2 mid buu ay tahay marka la fiiriyo dadka dabeecadooda marka la fiiriyo dabeecadda bini'aadanka ayaa waxay kala tahay wiilka badanaa waxay jecel yihiin inay qadqaadaan gabadha bedelkeeda mid waa taas midda labaad haddana hormoonada iyo kaadida gabadha iyo wiilka waxaa fudud oo jilcan tan wiilka tan gabadhan way adagta labadaas qaabba waa lagu sheegaa sababta ay u kala duwan yihiin waaya marka nijaasta fudud waa nijaasta wiilka aan caano waxaan hayn cunin 2 sanana aan gaarin hadduu caano waxaan hayn cunin wuu ka baxaa baabka 2 sano hadduu gaaro baabka waa ka baxaya walmutawassidatu midda dhexdhexaadka saa'iru najaasaati nijaasooyinka ka soo haray intaas waa meeqa nijaasaan soo sheegnay mid fudud iyo mid adag tan adag maxaan ku sheegnay nijaasatul kalbi wal khinziir wa far'u ahadihima nijaasta adag waa eyga doofaarka iyo labadooda faracooda tan fududna waa wiilka aan caano waxaan hayn cabin 2 sanana gaarin intaas labadaas nijaaso wixii ka soo haroon nijaasooyinka kaloo dhan ayaa waxaa la yiraahdaa mutawassita nijaasta dhexdhexaadka ah saddexdaas wixii ka soo haro wiilkii 2 sano gaaray 2 sano ka badnaa caana waxaan hayn cunay mutawassidadu aada gabadhii mutawassidada aade digadii mutawassidada aade dhiigii waxyaabahaas oo dhan inta kaloo dhan marka mutawassida la yiraahdaa nijaasooyin mar saddexdaas loo qaybinaa inay tahay mid adag mid fudud iyo mid dhexdhexaad maxay kala yihiin marka faslun hada fasilun see loo kala dhaqayaa faslun hada kan fasilun kii wax kala saara waa المغلظة نجاسة أذك تظهر ويظاهر بيسا ب7 غسلات تضبط دقيتان بعد إزالة عينها عين تيذا مركا لزولية كدب سكفيري نجاسة عين تيذا مركا لزولية كدب أياد ظاهر استيلا بلاوة أي كاديديس kaadi hadday midab lahayd oo meesha ka muuqato midabka waa in laga suuliyaa marka hore dhiiggiisi xaarkiisi ama doofaarkiisi sidoo kale markii cayntii la zuuliyo muuqatay kadib ayaa waxaa la bilaabaa 7 daqiiqo laakiin cayntii oo muuqata kadib cayntii oo muuqata aan 7 kow dhaha ma jirto nijaas kastana waa la mid nijaas kasto la dhaqaayo waa sidaas markii caynta la baabiyo kadib daahirintii bilaabmaysa tadhuru way daahiroobaysaa ب7 غسلات 7 daqiiqan bacda izaalati caynaha caynta marka la zuuliyo wixii muuqday markii la zuuliyo kadib ihdaahunna midkood bituraabin cara'ayta mid baa waxaa laga dhigayaa cara laga dhigayaa waanagii soo marna xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam والمخففة مدة فضو تظهر ويظاهر بيسا
بالرش الماء بيكو فردين تيدا عليها دوشيدا مع الغلبة إيضا الله دم يستري إيا وإزالة عينها عينتي إلا الزوليو هدي عين موقتي أي لهيت عين موقتي هدي لهيت بولو السبيب اللي يرسمه هدي أي بولكي وحانا هين لغما هالله بولكي كادي ماشي أي جارتي بيه كرشي مركا كرشيسد هودا جاران هدي عين موقتي أو كاديس أي عين لهيدنا عينتي هبابا تاسا شرط تظهر ويظاهر بيسا بالرش كرشين الماء بيها إن لقرشي عليها نجاسة دوشيد مع الغلبة يدو لا دمايستري إن ماشا دان لا دمايسترو ويا وإزالة عينها عين تيدين للزولية قولك النبي عليه الصلاة والسلام ياها ينضح والا الرشايا بولو السبي ويلك بولو الغلام ويلك كاديديس ويغسل والا دقاه بولو الجارية كاديد قبضنا والا دقايا وايه نجاستي فضودات نوان أرقم تي أتكن نوان أرقم والمتوسطة مدى دحيسة تنقسم وحيو قيب سميسا على قسمين لبا قيبات نجاسة متوسطة الليرة أما نجاسة دحيسة لبا لو قيبنيا عينية مد موقتة إيو حكمية مد حكونا كسوقادة مد موقتة إيو مد كسوقادة إن نجاسة قارتو وادوك تامش لكن نجاستي ما موقت oo wax muuqda meeshii loogu jeedo ayniyatin mid muuqata ayniyatun ayaa u qaybsanay ayniyatin bay u qaybsamaysaa oo hukmiyatin bay u qaybsamaysaa mid muuqata iyo mid aan muuqanin al ayniyatu midda muuqata allati weeye laha iyada iskale lawnun midab ay leedahay midab muuqda meeshii ay ku reebto wariixun urbay leedahay wa ta'mun dhadhan bay leedahay dil dhadhamilha فلا بد مركا waxa laga maarmaana min izalati in la zuuliyo la baabiyo lawniha midabkeedii iyo wariixiha urteedii iyo ta'miha dhadhankeedii nijaasta muuqata oo midab meeshii ku reebto midabkaas waa in la baabiyo ur haday soo urayso urti waa in la baabiyo dhadhan hadii loo qadaro dhadhankeedii waa in la baabiyo saddexdaas markii la baabiyo kadib ayay meeshii daahir noqonaysaa inta ay muuqato وحبا ما أنفعس العينية التي ويلها يدسك لون مذا بيلاذا والريح ددن بيلاذا وطعم ريح أربي لون مذا بيلاذا والريح أربي لاذا هاي وطعم ددن ويلاذا فلا بد وحالق مرمانا من إزالة إن لبابئيو لونها مذا بكذي إن لبابئيو والريح أرتدي لبابئيو وطعمها ددن كذي لبابئيو والحكمية مدك حكمك ماشا نجاسة قارتي كسوقات واي حكمية ليرهذا التي وي لها لا لون مذب ولا ريحة أر ولا طعم ددن أيسان أهين لها أيضا يكفيك وحاكاغا فلان جري الماء بي إن لغو دريريو يكفيك وحاكاغا فلان جري الماء بيها الكدريرين تودا يكفيك وحاكاغا فلان جري الماء بيه إن لغو دريريو عليها دوشة إذا لغو دريريو أيا كاغا فلان وايه marka nijaasta xukmiyada ah waa midaan midabna lahayn urna lahayn dhadhanna aan lahayn kaliya waxaa lagu daahirinayaa biyihii in lagu dureeriyo ayaa kaaga filan yakfiika waxaa kaaga filan jaryul maa biyihii ku dureerintooda calayha dusheeda lagu dureeriyo faslun haadaa kana faslunki wax kala saara waay aqalul xaydi meeshaan wuxuu nooga gelayaa caadada maxaa ugu yar maxaa ugu badan intee muxuu ahaa loo badan yahay qaalibkeeda intuu yahay wuxuu leeyahay marka daahirka xaydkana muxuu noqonayaa nifaaskana sidoo kale maadaama nijaaso laga soo hadlay oo dhiig ahayd dhiiguna uu ka mid yahay caadaduna ay dhiigga ka mid tahay sidaas ayuu ugu soo xijiyey wuxuu leeyahay marka aqalul xaydi
caado waxaa ugu yar yowmun maalin iyo walaylatun habeen aqalul xaydi caado waxaa ugu yar yowmun maalin iyo walaylatun habeen gabadha waxaa dhici karta dhiigga inuu u joogo maalin iyo habeen keliya maalin iyo habeen keliya haddii bishii uu u joogo bishii inta kale bishu waa 30 maalmood hal maalin ayaa dhiigga u jooga inta kale daahir ay ahaaneen وغالبه سيدا ugu badan غالبka sida 6 weeye aw 7 ama 7 weeye bishii waxa dhici karta in غالبka sida u badan yihiin haweenku sida haweenku ay u badan yihiin 6 waaye aw 7 ama 7 haweeneydan waxay u joogaysaa caadi dhiig wuxuu u joogayaa 6 maalmood 6 buu u joogaya bishii 30 ay 6 ka jar 24 kala daahir ay ahaane aw 7 ama 7 u jooga 7 ka jar 20 ee 30kii 23 bari kala waxay noqonaysaa daahir ay ahaane wa aktharuhu midka ugu badan dhiig meesha ugu badan oo gaari karo 15 yawman 15 maalmood wa 15 maalmood bilayaaliha maca layaaliha oo habeenadeedu ay la jirto habeenooyinkeeda ay la jirto caada meesha ugu badan ay gaari karto waa 15 maalmood 15 maalmood in dhiigi joogo 15 maalmoodna ay daahir ahaato intaan marka maxay tahay waa istiqraa ama raacitaan uu sameeyay imaamkeena maxaa la yiraahdaa imaam Shaafici haweenka jasiiratul arab joogay ayuu barbaaray markuu barbaaro waxa uu soo baxday marka saddexdaas xaaladood inay kala galayaan waxa laga yaabaa haweenka Soomaalida meesha qaalibka hadda uu dhahay 6 aw 7 inay iyagu yihiin 3 aw 5 inay u joogo dhiigi gabadhan 3 maalmood ama inuu u joogo 5 maalmood inuu u joogo 3 hadduu u joogo 27 bari daahir ay tahay 3na dhiigi baa jooga 5 u jooga 5 daahir laan waay 25 kana daahir waay marka waa raacitaan waa qofka caadadiisa marka la fiiriyo intaas kama baxayso hal maalin ilaa 15 maalmood wixii dhaaf ah mustaxada la yiraahdo waa dhiig iska socdo waa xidid dilaacay way maahane dhiigii caadiga ah ma waay حمنة بنت جحش يا نبي عليه الصلاة والسلام هذا كاروتين مركز تري عادة مركز أوشكتي وحيري وحيوشكتي مركز إن تضبط لحي ودحيس فالتحيض يضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسل أنا ديجي بدنا وحي جوجا تري أما اللحم مع الموت أما تضبط مع الموت intii markii aad joogtid dhiiga iska socdo marka gabadhan wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam 6tii aad taqaanay ama 7dii aad taqaanay caadada ka soo qaad bisha marka la yiraahdo ka qabayso markaas kadib waxaad samaysaa haddaad dhiiga aragtid adoo daahirkii ah oo u soo laabto salaadahaaga duko markaastana muxuu ahaa iska dhaq iskana gufay salaadaadana hore u duko kataa waxay tusinaysaa waxa la fiirinayaa qofkan caadiisa meeqay joogaysa halkii maalin ilaa 15 inay u dhaxayso bal raa wixii ka badan caadiisa caadiga u laabanaya marka maalmihii oo caafimaad ka qabay muxuu ahaa ayaa la fiirinayaa waay tawa caadidi waa daahirkii oo hadda aan raacineynay ayuu noo sheegay marka wuxuu leeyahay aqallu tuhri daahirkan ugu yar بين الحيضتين لبدا عادو عادان هدا اي جوجتو iyo tan kale soo socota inta daahir ay ahaan kartay u dhaxay karta 15 yawman 15 maalmood 15 maalmood gabadhii ugu badnaan 15 oo haynay 15 kala daahir ahaanay way وغالبه inta ugu badan 24 yawman min yawmin oo maalmood
24 يوما لباتني أفر مع الموضوع وأمركي اللحظة مع الموضوع هنا أو مثلا 23 يوما أما هو سدح إيا لباتن مالين وي 23 يوما أما هو سدح إيا لباتن مالين وأمركي تدوبري هنا ولا حد إنه سن يالنا والله يابا لأكثره بدن كيس إنه سن حد يالنين أو سن مرنا وقبدي أي سن كودعين عادة أي سن كودعين ويدعي كرتا عمري جاده هالمر لا أي كودعه كدي من أيسان أركن تانا ويدعي كرتا مركز تاسنة ويدعي كرتا حد ما لها بدن كيس أقل الظهري ظاهر كانوا يربين الحيضتين لبدأ عادة 15 يوما وعشان يتوان مع الموت وغالبه سيدا أقو بدن 24 لاتين أفر مع الموت يوما من يوم أو مع الموت أو مثلا 23 سدح يلباتن يوما من يوم أو مع الموضوع ولا حد ما لها لأكثره بدن كيس أقل النفاس ديق دالمدا كان أغير ديق دالمدا كان أغير مجة غنيتان هل مر إنو سوق غنمو دفعة واحدة هل مر إنو سوق بتاعه كدبنا أوسان إيمانه وغالبه سيدا أغو بدن 40 يوما أفرتن مع الموضوع سيدا أغو بدن أفرتن مع الموضوع وأكثره سيدا أغو بدن غالب كيس عنده وغالبه سيدا غالب كا لو بدن هاي 40 يوما وأكثره أكثر كيس ماشي أغو بدن وديك دالما أغاري كارو 60 يوما لحدا مع الموضوع لحدا مع الموت أو يون غنية مركا ديك دالما دا إسنوا راعتان وحو حديث وتوسع أو شيء جاي سيداس مجرد إنه هالمر نقض إنه أفرتن مع المود نقض إنه كنتن مع المود نقض صدن مع المود إنه نقض لحدن مع المود إنه نقض وراعتان لو سميه واي مهنه ما هن هذا مالتوس وإنتاسو نقنيا وجوينيس مجرد قف كاستئيه عادي سئيه قابك أو إمادة فصل أعذار الصلاة فصل هذا فاصل كي وحكى لساروي أعذار الصلاة الله سبحانه وتعالى على الكسل